qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada xabkaha beeyada iyo faleenka ee gobolka Sanaag ee ay maalgeliso shirkadda Asli Mayd oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay goobahooda ganacsi ee magaalada ceerigabo oo haatan ay sheegeen inay gebi ahaanba xidhan yihiin kadib markii shirkadda Asli Mayd ay ka joojisay maalgelintii ay siin jirtay ganacsatadaasi waxayna sidoo kale ganacsatada haweenkan ee xukuumadda Soomaaliland ka dalbadeen inay ka dulqaado culayska sababay joojinta maalgelintooda si ay u socoto shaqadeeda maalgelineed ee ay siiso shirkadda Asli Mayd waxaana iyagu arrimo kale ka hadlaya hadaladoodii waxaan ka midnahay ganacsatadii ka ganacsan jirtay beeyada gelin baan la siin jiray maalgelintii iyo hawlihii aan wadanay wana laga joojiyay waxaana lagu sameeyay cunaqabateyn iyo carqalad ku xidhay maxay taawsheedii iyo shaqadayadii waxaan u baahanay in laga sii daayo carqaladda iyo dhibaatada dawladuna maxay haytay naga furto hawsha hukuumadana maxay haytay waxaan u leenahay caqabada naga qaad waxaan nahay ganacsatadii beeyada ka ganacsan jirtay shirkadda Asli Mayd baa maalgelinta nasiin jirtay maalgelintii imika wana laga joojiyay dib u dhac weyn baa nagu dhacay waxa weeyaan dad badan baa ka shaqaysan jiray halka oo dabkooda iyo cuntadooda iyo caruurahooda ka biishan jiray qabada bakhaaradiina waa kuwaas way xidhan yihiin waxaan leenahay xukuumadda gobolku waa gobol aad u fog hana loo sii daayay hawlaha iyaga iyo shaqooyinka iyaga aanu shaqaysanay kamid ahay ganacsatada beeyada waxaana la siin jiray maalgelin aanu ku shaqaysano waana laga joojiyay waxaanu u baahanahay in laga qaado xukuumadda baan ka codsanaynaa sidaanu maalgelintayada u helo wax kalena ma hayne beeyadaasaan ku shaqaysan jiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوية وحناهي ganacsatada kamida beeyada Soomaaliland maalgelinta shirkadu nasiin jirtayna waana la ka joojiyay waxaan rabnaa in loo soo celiyo waxaan rabnaa in la ku garab taagnaado waxaan rabnaa hadii alla baydankeeda leeyahay in la ka qaado wixii culaysa iyo wixii cadaalad darro ah iyo wixii baanu leenahay baanu u gudbinaynaa xukuumadda cusub geesta kale gudoomiyaha iskaashatada beeyada gobolka Sanaag Mustafa Maxamed Biixi ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelatay joojinta maalgelinta ay shirkadda Asli Mayd siin jirtay beeyadooda waxaanu sidoo kale intaasi raaciyay in amarka lagu joojiyay maalgelinta shirkadaasi bixin jirtay uu kaga yimi magaalada Hargeysa isagoo xukuumadana ugu baaqay inay wax ka qabato arrimahaasi halkan aan kaga hadlayaa anigoo gudoomiyaha iskaashatooyinka beeyada ah يعني برويه شقة حاجة شقة بيجي إسكاشتوين قبل كسنة وحن عادي أنو ما أنت جبت وين نجى أي كتة أنت هاي يدو أي شقة دي استاكتي حبيراته سببت الشقة دي استاكتي أي أشوك ستينا أي هاي أرنك حاجة قلبيت كنجى جيمي مجال مدح الحرقيسة حكومة جوجتين وايو shaqadii oo dhan baa taagan sida darteedna shirkadii Asli Mayd waxay joojisay gabi ahaanba maalgelintii inamadii dareewaladii haday tahay hadii shaqooyinkii kale tahay intiiba way istaagtay markaa waxaan caqabad weyn naga haysataa markii shaqadii wada istaagtay maalgelintii joojisay shirkadda Asli Mayd waxaanu leenahay maanta dhaawac gobolka isagoo aan gobolka hadan waxba aan ka kala soconayn misana dhaawi halkii wax laga helayay oo shirkadii maalgelinta bixinaysay istaagtay in la isku soo jeestay noqonaysa xukuumaddan waxaan leenahay arrinkaasi arrin maanta hadii nagu qaloocan weey gobol ahaan tayada iyadoo gobolkuna aad u soo fogaa wax badan ay haystaan duruufo adag oo kale haystaan in maanta hadii bari wixii ka shaqeynayay la joojiyaa hadii bari in xukuumaddu waxaan leenahay wixii shirkadaasi ay hawlgal ka waday gobolka haba yaraatay way joojisay sababtan xukuumaddu iyada leh waxaan leenahay xukuumadda arrinka ay isku soo jeedin dadka xukuumaddan waxaan ku codsanay inay noo fududeyso maadaama ay maanta ay shaqadii joogsatay in hawlaha noo fududeyso ayaan xukuumadda aad uga codsanayna